السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا داودا القصة كهدليسا وإحسان فليدا دادكا بلسا انتانا نقودقلين قصدينا فضلا لايك سار قصدان مالين مالماها كميدا فرمسيغان وحا سوغالي ويلير وحونا كسو حديقار كميدا داودي تالي فرمشيغا لكن وحا قواتيها ويني دي لهايد فرمشيغا وينا كقادي داودي او كسو حدي كديب وحا او يمدنين فقيرة وحونا ويديي ويلكيارا هويدا ميا كاحنوصان ويلكيارا اسوغا او مديحيسا hoos aadinaya ayuu ku dhahay ninkii ayaa ka bixiyay lacagtii daawada wuxuuna siiyay haweeneydii sidoo kale gabadhiisii oo u dhaweyd inay cunto u soo gado wiilka yar ee faqiirka ah wiilkii ayaa qaatay daawadii iyo cunadii guriga hooyadiis 30 sano kadib waxa weynaatay gabadhii uu dhalay ninkii faqiirka ahaa waxayna ahayd mid kala shaqeysa aabaheed maqaayad uu lahaa maalin maalmaha kamid ah waxa dhulku ku dhacay oo suuxay aabaheed kadib waxay ula carartay dhinacii isbitaalka markii la dhigay aabihii qolka gargaarka degdega ah waxa loo soo qoray daawo qiimaheedu gaarayso $24,000 Mareykanka laakiin gabadhii ayaa ka naxday lacagta tirada badan sababtoo ah ma awoodaan lacagtaas ee waxay ahaayeen qoys faqiir ah maalin ayay soo gashay qolkii uu jiifay aabaheed waxayna ka heshay warqado ay ku qoran yihiin lacagtii laga rabay bukaankan oo ahayd daawadii uu qaatay waa laga bixiyay waxna laguma lahan miyaad ogtihiin daawadayaal qofkii ka bixiyay lacagta waxa ka bixiyay maamulii isbitaalka kaasoo ah wiilkii yaraa ee soo xaday daawada 30 sano ka hor si uu sii hooyadii ka xanuunsanayd haddaba daawadayaal waxa idinkula dardaarmayaa inaad markasta u ixsaan fashaan dadka fuqarada ah iyo kuwa dhibaataysan hana noqon mid iska weynaysiya oo iska indhatira dhibaatooyinka dadka waxaana halkaas inoogu soo dhamaatay qisadeeni ka hadlaysay u ixsaan falidda dadka masaakiinta ah fadlan sii faafi qisadan oo gaarsiiya asxaabtaada si ay ugu cibro qaataan waxaanu idinkaga tegaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبت قليو